kulanti wacan oo wanaagsan amaba jimca kariim meel walbood caalamka aad ka joogtaan ee xilli walbo idin tahayba waqtiga ha idin wacnaado waayahana ha idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab Weydile maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin meel walbood caalamka aad ka joogtaan ama aad kaga sugantihiin farxad iyo bashbash iyo baraare iyo nabadqab insha Allah ku jooga haddii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay la kulankaagii ugu horeeyay subscribe saar kambaleelka furo videogana like gareeya sina share gareeya asxaabtiina dhammaan si oo noogu gaaro meel aad u fiican oo aan dhamaanteenba ku wada riyaaqno hore hadaa aan nooga mid ahaydna aad baad ugu mahadsan tahay waxaan rajaynayaa in aanan channelka lagaaga sheekeyn doonin adigoo ka sheekeyn karo maanta muuqaalka social media ugu qatarsanaa oo markaas iga soo horbaxo ayaan doonayaa in aan idin la wadaago muuqaalka waxa uu yahay wararka qaar ee xanta ay sida hoose ayaa waxa sheegayeen in fanaanka weyn ee Sharma Boy uu ka baxay balsa live dushiisa ayuu waxa uu ka qirtay markii su'aashaas la weydiiyay inuu fanka gabi ahaanba uu faarijiyay sababta kaliftay laakiin dad badan way isweydiinayaan maxay tahay sababta iyo muxuu iskaga daayay intaba way isweydiinayaan isagoo weli aanan sheegin sababta guud ama sababta dhabka ah ee ka dambeysay inuu fanka isaga baxo qof allaali qof maanta uu sheegay ma jirin oo arrinkaasi waa uu ka baxay oo kaliya ayaa la maqlay ilaa haddana wuxuu qaranayaa inuu ka baxay laakiin dadku intooda badan waxay isweydiinayaan sababta uu uga baxay ama uu fanka uga fariistay xilligaani qof kamid ah saaxiibadiisa ama asxaabtiisa ayaa waxa uu weydiiyay markaasi iyadoo aanan ahayn horta markaasi su'aal aan jeclaystay in la weydiiyo sababtoo ah qofka fanka uu isaga bixi karaa shalayna isaga ku soo biiray laakiin su'aasha la weydiiyay ayaa waxa ay ahayd maanta uu fanka uu u baahan yahay sababta uu uga fariistay waxa uu ugu jawaabay iyo waxaan idin hayaba way ka weyihiin isuga oo ila jooga horta bal waxa uu ugu jawaabay daawasho wacan fanka uu ku baahan yahay waqti uu ku baahnaa soo wataysaa wallahi billahi libaaxiga fanka waa ii baahan yahay ilaahina waa ii baahan yahay fanta sax marka labadooda tan ilaahay ayaa fiican ma fahantaniyo fanka muhiim ma ahan waxa ma ahan والله هذا باشارك إذا نيردي وحي أنا وكل حجرة أصحابتي ذا كدحم كميت أهاي وقتنا لقات أصحابتي دتكيجا أو سوشيال ميديا متقانا سيدا أو مرمركو لسكو مشغولي وحاسنا وصاقله لكن فن أهان وحن سجد في إن أنت سيوضو أنت هريتو أبو حيط هاي وهذا يرتان سانكو دخلها يوعدك وحن دخل كرنا ما أهان sida soo daawateen waxa uu ugu jawaabay fanka sababta uu markuu dhafanka uu ku baa maxaa uga baxday wuxuu ku jawaabay su'aal ama jawaab wuxuu bixiyay aad u qiimo badan oo ahayd in ilaahayna u baahan yahay maadaama ay faniskiisa ay u baahan yihiin in ilaahayna sidoo kale uu ugu baahan yahay way waa adoon ilaahay abuuray shalayna isaga adduunyada keensaday waxa loo keenayna waa uu ogyahay maanta waa uu nagartay marka sidaas darteed su'aashaasi su'aal xanuun badan ayay ahayd markaasi aanan aniga xitaa jeclaysteen hadii aan jaaris u helo in aan hor weydiiyo sababtoo ah fanka waa isaga bixi karaa maanta haduu arka meel xun shalay isaga ayaa u arka meel fiican waxa uu yirina shalay markii aan soo galay cid aan kala tashtay jirin maanta markii aan ka baxayna sidoo kale cid aan kala tashanay ma jirin oo waa isaga bixi lahaa oo kaliya waana la weyn lahaa heesihiga haddaba sababta guud ay markaasi uga baxay fanka ayaan rabaa inaan idinka dawageeyo intiina og yihiin balse xasuusin ayaad u baahantii qaarkiin laga yaabay inaysan ogeyn oo channelka ku xiran macnaha guud oo markaasi oo fanka uga fariistay ayaan idin la wadaagayaa hadii Ilaahay idmo macnaha guud oo Sharma Boy oo fanka uga fariistay waxa ay ahayd su'aal hadii aad xasuusataan wiil ayaa waxa uu soo galiyay sida muuqaalka hadaba aad idinkaga dhax muuqdo aabihi oo ah Cabdinaasir waxa uu ku yiri waa aabihi dhalay Sharma Boy ama waa Sharma Boy aabihi Sharmaake aabihi weeyaan Cabdinaasir ayuu yiri wiilkaaga maxaa leedahay wiilkayga wuxuu yiri ilaahay ha ka soo hadeeyo meesha uu ku sugan yahay iyo fankaba Allah ka soo hanuuniyo marka taasi Sharma Boy waxa ay ku noqotay markii uu daawaday fiidiyogaasi waxa ay ku noqotay runtii arrin culeyskeeda wato sababtoo ah aabaha adiga ku dhalay xitaa hadii aad fiidiyoga sii fiirsatid odayga waxa uu diidayaa in uu si guud u taagnaado ama uu isagoo caadi ah uu ka jawaabo su'aasha sidaas darteed marka aabihii oo aanan jeclaysanaynin wiilkiisa inuu ku hadal hayo ama hadal yani hadalkiisa ku raaxaysto aabihiisoonan ogolayn
hadduu arkay adigaba haddii aad tahay maanta waxaan rajaynayaa go'aanka oo Sharma qaatay ayaad qaadan lahayd maadaama ay waxaan isugu yimaadeen oo ay fanka kaliya tahay fanka waad faarujin lahayd adigoo aanan cidna su'aal ka weydiinin bil xaqiiq marka loo hadlayo waad faarujin lahayd adigoo wax su'aala aadan qof ka weydiinin sababtoo ah adduunka waxa ugu qaalisan ee Ilaahay bixiya waalidiintu ay ka mid yihiin oo maanta qof walba waalid haysta ayaa garan kara qiimaha uu ku fadhiyo waalidiinta ama qiimaha ay nolosha kaaga fadhiyaan ama ay ku taagan yihiin sidaas darteed Sharma go'aanka uu qaatay waxa uu qaatay aabihii dartii waa una ku saxan yahay waxana leeyahay maanta waxaad waafaqday wax walba oo wanaagsana ama noloshaada ha ahaato ama taada dambe ee cirdigaaga iyo ciyaalkaaga ha noqoto waad ku qaadatay go'aankii u qalmay waxaana rajaynayaa mar walba in aad ahaatid kan guuleystay adigoo fanaan noocan waxaan mar walba aan kuugu garab taagnayn inaad noqotid mid guuleystay maanta oo aadan fanaan ahayn waxaan kuugu garab taaganahay ama aan mar walba leenahay waxaad noqotaa ama aad ahaataa mid guuleysta weligii iyo allihii waxaana mar walba aad ogaataa nolosha ka wardoonitaankeeda ma ahan wax weyn laakiin inaad ku sugnaatid oo adiga oo markaasi ku sugan ay wax kugu soo gaaraan ayaa ka xun maanta waxaad qaadatay go'aan raganimo leh dad badani oo adiga ka horeeyay ama dad badani oo adiga ka daaweyn ayaa qaadan la ama ku dhici la go'aankaasi iyagoo nafsaani isaga rabo inay go'aankaasi qaataan haddana aad bay ugu adag tahay waayo waxa ay wali ku dhex sugan yihiin nolosha markaas ma awoodi karaan inay ka dhex baxaan maanta waxaad joogtaa meel ka horumarsan waxaad awoori kartaa ama aad samaysan kartaa waxyaabo fara badan oo adiga noloshaada kaaga sii wanaagsanaanay meesha aad hadda taagan tahayna aad kaga saarmaraysid ogo mar walba waxa tahay Sharma boy ayaa tahay mar walba yaani waxa tahay qof sareeyo qof markaasi magaca imaamuuska iyo mudnaanta oo Soomaalida uu ku dhex lahaa weligii ku lahaan doona ayaa tahay mar hadii been al-mashriq wal maghrib iska daa dadka Soomaalida dadka cadaanka ayaad gilgishay oo noloshoodii wada gilgishay waxaad ku biirtay in aad soo gelisid ama aad soo xirgelisid ama inay is saaraan heesahaaga marka ay arkaan yaani heerkaas ayaad gaarsiiseen ninka labaad ee maanta aan leeyahay saameynta ugu weyn ayuu ku leeyahay dadka ajaanibta ahna waxa weeyaan Lil Balil la dhahayo isagana run ahaantii waxa uu qofkiya waa la qirtaa Lil Balil isaga xitaa waxa uu gaaray heer yaani heesiisa la soo qaato marka labadiina waxaad u aheedeen fanka Soomaalida labada qof ee maanta ugu firfircoon ama luqadda Soomaaliga iibiye ayaa tihiin haddaan la isxaqireen inta ila raacsan way ugu raaci doontaa inta iga hortimaadana dhibaato ma lahan in fikirkeena ay mideysnaado ama mid noqono fikirka macquul ma ahan sababtoo qof walba fikir u gaara iyo aragti iyo cabir gooni ayuu leeyahay laakiin waxaan leeyahay Sharma boy mar iyo laba iyo saddex ba aan ku leeyahay waxaad qaadatay go'aan geesinimo leh go'aan geesinimo leh tan waan sugayay way timid tan labaad aan ka sugayo ayaan wax yar iga dhiman yahay oo aan rajeelaya taasi oo ah mar labaad inaan iskaking garab arko adiga iyo xaajiyadaada oo markaasi isgarab taagan ama dib iskugu soo laabtay wiilkiina yarna ay idila joogo oo aad magaaladiina aad ku nooshiin aad keensataan taasina waa farxadda ugu weyn oo dad badan oo adiga taageero ku ah ay sugi la yihiin waqtiga ay dhici doonto insha Allah wayna dhici doontaa sida ugu dhow waxaana ku leeyahay saaxiib mar walbo email walbo guuleystaha ugu horeeya nolosha ahaaw ilaahayna ku garab galo mar walbana taas ayaan ku leenahay aniga iyo inta wanaagaaga jecel ama inta aad ku jecel ay kugu xiran mar walbana rajaysa wanaagaagi intaas ayaan ku leenahay waxay kula tahay daawadow waad nala wadaagi doontaa commentiga noogu reeb videogaanina xaqiiqasiya like garee sina share garee intaan mid xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa nabadiino